بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمها يقايها له الدوينة هي لا صعدة سولا لايف برودكاست لا صعدة وحان الله هاي من العيدين كل عام وأنتم بخير وعيد وينت يا ما أنت لو جراه مرة عيدين تتهدي إيديان dadna waqti soo socday ay yideen marka waxaan idin leeyahay waqtigana qaaliga ah qoyskiina alla qaadanaysaan ilaahay ha ka dhigo khayr wadanka Soomaaliya ilaahay ha nooleeyo saako aragteen waxaan ka hadlaynaa oo laga soo codsaday oo ayaamahan aan baadi goob aan ugu jiray Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax shakhsi la yiraahdo oo internet ka qabsaday oo ilaahay ku roon yahay xaalkiisa ويهاي حال runtii aan dhihi karo waxay gilgishay shacbiga Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dadka shaqada ku leh marka waxaan idin ka codsanayaa inaad sii qaybisaan videogan waa loo isticmaali karaa YouTube waa la qaybin karaa laakiin title-ka ama qoraalka sidoo yahay laga bedeli karo qalbi dhagax ayuu title-ka yahay saas lagu dhaafi karaa marka Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax waa shakhsi Soomaali ah sheekadiisana inta badan waxaa la maqlay 23kii bishan hadda dhamaatay ee August oo aan ku jirno ayaa waxaa la maqlay in dawladda Ethiopia gacanta loo geliyay isagoo lagu eedeeyay inuu yahay argagixiso ama sida yiraahdeen uu xubin ka yahay Ogaden National Liberation Front ONLF oo qof walba oo Soomaali ah yaqaano ayaa la yiraahdo kamid ahaa marka runtii dad asxaabta kamid ah oo Facebook ayaa inta badan waxay yiraahdeen Cabdinaasir 5 maalmood ayaad arintan ka aamusay hadii aad gadaal u raacdaan dhanka iyo Facebook-gayga waxaad ku arkaysaan ilaa iyo 5 maalmood arimahan Facebook-dan inaan soo gelin taasoo ahayd in mar walba aan jecelahay inaan soo ogaado fact iyo wixii jira intaana maaragtay laablakac iyo orod iyo waxaas aan sameyn marka sahankaas ayaan ku maqnaa maaragtay Cabdikariim Sheekh Muuse oo ah shakhsi Soomaali qalbi dhagax loo yaqaano marka inta badan meelo badan ayaan ka maqlay Ethiopia dawladeeda wasiirkeeda faafinta iyo Voice of America Amharic section-ka ama luqadda Amhaarada ku hadla ayaan waxaan ka maqalnay in shakhsigaas gacanta loo soo geliyay laakiin jahawareerka ugu weyn iyo isfaham la'aanta iyo dhibaatada ugu weyn waxay ka socotaa dhankii dawladeena Soomaaliya oo runtiina aan lagu tilmaami karin dawlad iska aamusan oo aan hadlin oo social media soo galin oo warbaahinta aan la hadlin aan lagu aqoon oo hadda afkooda waxba aan ka soo bixin taasna xoogaa walwal iyo walbahaar iyo madax xanuun iyo stress aad u fara badan ayay ku riday dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo aniga aan ka mid ahay aniga waxaan xaqiijin karaa dad dawladda kamid ah in aan la xiriiray oo arintan aan weydiiyay oo aan iri war xaalku soo u socdaa dadkii dhalinyaradii xildhibaanadii dadkii idin taageeradkii oo dhan wali way idin taageersiin laakiin waxay doonayaan say wax u jiraan bal waxaan ogaano ilaan bulshada iyo qaranka Soomaaliya oo dhan dadka waxay doonayaan inay wax ogaadaan dawladoodii marka maaragtay masiibo ay dhacdo marka ay fidna dhacdo marka waxyaabo ay dhacaan waxaa la doonayaa dawladda inay soo istaagto oo ay hadasho ay tiraahdo sidan iyo sidan iyo sidan ay wax u dhahan marka waxaan doonaynaa anagoo si rational oo maskaxiyan u hadlayno in aan kala saarno inta badan ma eegayno kaliya shakhsigan Soomaaliyeed ee qalbi dhagax ayaa la qabtay meel ay gaalkacyo ayaa laga qabtay ama Soomaaliya ayaa laga qabtay Ethiopia gacanta loo saaray taas waxay noqonaysaa black and white ayaa noqonaysaa black laga soo bilaabo white ku dhamaad marka guud ahaan dawladda waxba nooma sheegin xataa dawladda maanta waxa laga yaabaa in ay press conference ama war intay soo tabiso ay tiraahdo war waxaas waxba kama jiraan qof la dhiibay ma jirto qof wax lagu sameeyay ma jirto wali dawladeeni Soomaaliyeed afkeedii wax kama hayno marka taas macna badan ay yeelan kartaa Ethiopia wasiirkooda faafinta wuxuu yiri ninkii gacanta ayaan loo soo geliyay dawladda Soomaaliyeedna wali hadal ma dhihin marka ani ma dhihi karo dawladda hatta qoraalkay ugu dambeeyay waxaan ku soo qoray hadii arintan ay runtahay sababtoo ah hadii shakhsigan uu xabsi uu xamar uu ku jiro ama gaalkacyo ama cadaad ama meel uu ku jiro marka dambana qof walba iska hadlo waxay noqonaysaa dib ay noqonaysaa laakiin dawladda waxaan ka rabnaa inay tiraahdo arintaas ay ka hadasho in laga aamuso arinta ma ahan
marka haddii ay leedahay dowladda annaga iyo Ethiopia waxaa naga dhexeeya xiriir aad u wanaagsan ma doonayno qof qalalaasaha Ethiopia anaga ka shaqeeya waddankeena inuu joogo xataa haddii uu Soomaali yahay waa mas'alad dowladda marka laga dhageysan karo marka aniga shakhsiyan ma aaminsanahay qof dowladda deegaanka Soomaaliya qof qalalaaso iyo dhibaato iyo nabadooda qasaya in uu Soomaaliya dhibaato kaga soo sameeyo aniga ma aqbali lahaa aniga shakhsiyan ma aqbali lahayn qofkii arkay jigjiga waan tagay gobolada DDS ku dhan waan tagay nabad iyo horumar iyo waxa ka socotaa maxaa la yiraahdaa waxbarasho ka socotaa marka qofkii dhulkan DDS ka la yiraahdo waa traditional waa dhul Soomaaliyeed waa dadku soo Soomaali waa af Soomaaliya ku hadlaan wax walba marka qof ma la dhihi karaa gaalkacyo ama Hargeysa ama Kismaayo tagaya wuxuu qalaas ku sameeyay DDS dowladda Soomaaliya waxay leedahay waa muwaadin Soomaaliyeed waa la xafidayaa taas lama sameyn karo sababtoo ah waddanka haddii aad friendly aad tihiin asxaab aad tihiin qaab la isla dhaqmayaa jira marka taas weli lagama warqabo taas haddii ay ahaan lahayd xataa haddii ay dhacdo oo arrintaas ay dhacdo shakhsigan la yiraahdo qalbi dhagax lagu qabtay wax sharciga maaragtay oo dhibaato u keenaya haddii ay ku tilmaameen ogaada National Liberation Front dad waxay ku tilmaamaan inay yihiin argagixiso dadna waxay ku tilmaamaan inaysan ahayn argagixiso waxay la mid tahay Xamaas oo kale Xamaas dad qaarkood waxay leeyihiin xataa carabta qaarkood argagixiso kuwan waxay leeyihiin argagixiso ma ahan marka muhiimaddu weyn waxay tahay in la ogaado dowladda Soomaaliyeed arrintan maxay ka ogtahay haddaysan ka ogtahay ama aysan ka ogeyn maxay uga hadli weysay marka arrintan kulley markii la sii barbaaray waxyaabo badan oo dadkii dowladda ku jirin aan la hadlay qof iiga jawaabay haba yaraatee ma jirto tabcan magacooda ma sheegayo qof iiga jawaabay ma leh marka laakiin arrintii way sii weynaatay xataa waxaa soo dhexgalay dad oo opportunist la yiraahdo oo fursad oo dowladda ay attack ku sameynayaan ama ay ku hajuumayaan ay u isticmaalaan marka laakiin haddii dowladda waxaa laga rabaa inay dadkeedii ay la soo fadhiisato oo ay tiraahdo sidan iyo sidan ayay u dhaceen waxaa kaloo oo press conference ama dhanka warbaahinta la hadlay afhayeenka ONLF-ka Ogaden National Liberation Front af Ingiriis ayaa lagu soo tabiyey wuxuu yiri the current president of Somalia madaxweynaha iminka jira marka dadka qaarkood ee af Ingiriiska aan aqoonin waxaan isku dayayaa in wixii ay yiraahdeen aan u tarjumo marka iyaga ayaa yiri marka waan tarjumayaa af Soomaali iyo af Ingiriis ayaan isku dhex qasayaa the current president of Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo wuxuu yiri madaxweynaha iminka jira ee Soomaaliya and his accomplices iyo dadka asxaabtiisa oo la shaqeeyo ay gacan iska haystaan wuxuu ku tilmaamay Prime Minister of Somalia Mr. Hassan Ali Khayre National Security Advisor shakhsiga National Security-ga maaragtay waddanka nabadda waddanka kala hadla ama ka waaniya ama advisor u ah General Bashir Mohamed Jamac Gobe iyo Head of NISA Mr. Abdullahi Mohamed Ali Sambaloshe intaas accomplice waxa la yiraahdaa qofka oo asxaabtada ama qofka aad isku dambi aad gashaan waxay ahayd taas ay soo qoreen have committed a national crime against Somali nation waxay ku dhaqaaqeen ama ay sameeyeen dambi ka soo horjeeda qaranka Soomaaliyeed waa siday leeyihiin ayaan tarjumaya and as such will bear the full political and moral consequences of their cowardly act tan oo u keeni karta dhibaato dhanka siyaasadda ah qaabka waxashnimada ah ay u dhaqmeen qoraalkiisa waxa hadlaya afhayeenka ONLF-ka ayaa hadlaya wuxuu kaloo yiri Mr. Mohamed Abdullahi Farmaajo has set a new black record and a vile precedent to the history of Somali nation madaxweynaha Soomaaliya Mr. Farmaajo wuxuu bilaabay oo markii ugu horeysay ay dhacdo arrin taariikhda Soomaaliya bal madow ka gali doonta waana markii ugu horeysay ayuu yiri Somalia to hand over fellow Somali to enemy of the Somali nation waa markii ugu horeysay oo qof Soomaali ah gacanta cadowga Soomaaliya la geliyay wuxuuna ku soo gabagabay the TPLF regime in Ethiopia Tigray regime of Ethiopia marka press conference igay soo dhibeen wasaas laakiin dowladda Soomaaliya wax jawaab kama bixinin wax kale lama sameeyay wasiirka warfaafinta ee Ethiopia ayaa Voice of America ama xarig la hadlay aan ku soo celiyay mar kale oo xaqiijiyay marka waxaan idinka codsanayaa in aad marka sii share gareysaan aad sii qaybisaan isla markaana aad title-ka aadan ka tegin markaas ay wax u dhaceen horta Cabdikariim Sheekh Muuse sidoo isaga Soomaali u yahay inta hadda daawanaysa 500 qof oo daawanaysa Soomaali u yahay aniga saan Soomaali ah isagana Soomaali u yahay
marka cabdikariin saddexdii sano ugu dambeysay Soomaaliya ayuu ku noolaa. cabdikariin wuxuu ahaa sida la iisoo sheegay sarkaal ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ku jiray ayuu ahaa. isaga iyo qoyskiisa wadanka ayay si nabad ugu noolaayeen. marka xilligan maxaa keenay haddii ay jirto, marka I have to be very careful, waa inaan is ilaaliyo erayadeeda sababtoo ah dowladda weli waxba ma soo sheegin. marka xilligan la jooga maxaa keenay in qalbi dhagax la keeno? mas-uulo badan ayaa la arkay, la soo geliyay meel walba in la keeno oo la soo kaxeeyo oo gobol meeshii lagu qabtay waxba macno yeelan mayso. dowlad goboleedka qabatay iyo waxba macno yeelan mayso. shay ku dhacday in la soo qabto muwaadin Soomaaliyeed oo gacanta loo geliyo Ethiopia siday iyada iga xaqiijiyeen wasiirkooda faafinta uu xaqiijiyay. marka waxaan ku laabanaynaa dastuurka Soomaaliya. haddii PDF-kiisa aad ka raadisaan dastuurka Soomaaliya ku qortaan dhanka iyo Google ku qortaan, waxaad eegtaan qodobada 4aad, 8aad, 12aad, 13aad, 21aad, 25aad, 37aad iyo 126 oo ka hadlaysa xuquuqda shakhsiga Soomaaliga ah uu leeyahay. aad eegaysaan markii haddii ay tan ay dhacdo, arrimahan oo kale way dhaceen, hore u dhaceen, marar badan ayay ka dhaceen. waxay ka dhaceen gobolada waqooyi, waxay ka dhaceen gobolada bari, gobolada dhexe, meelo badan ayay ka dhaceen. laakiin rejiimka hadda yimid ee cusub ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay ku soo baxeen qaab oo maaragtay wadaniyiin ah oo nationalist ayay ku soo baxeen, taasoo weli aan hubno in waxyaabaha ugu badan ee dowladda Soomaaliya dhalinyarada iyo xildhibaanada iyo qof walba uu ku taageero ay ahayd in annaga Ethiopia aanu u noqon dad gacantooda hoose ku jiro. marka haddii si fact or reality loo hadlo, Ethiopia waa wadan naga dhaqaalo badan, Afrikada bari iyaga u dhaqaalo badan, waa dad naga dad badan, naga ciidan badan, naga awood badan haddii fact loo hadlo. marka Ethiopiana taariikh ayaan leenahay, waxaan iskula joogi karnaa qaabka ah mutual respect ama in qof walba qof kale uu xushmeeyo. marka Ethiopia hadda dan ugu jirtaa Soomaaliya in maaragtay ay dagaal la gasho? tabcan ugu jirto. Ethiopia waxay nooga duwan tahay qowmiyado kala badan ayay leeyihiin, Soomaalidana dhankan ayay soo jiraan. marka waxyaabo politics ayaa jira, laakiin istaraatiijiga ay sameeyeen Maraykanka iyo maaragtay Ethiopia oo horey u yiraahdeen Ethiopia waxaa la yidhi waxaad tihiin oasis of democracy, Christianity democracy, oo ay ku wareegsan yihiin Islamic country. marka sheekadan haddaan sii galo waxay soconaysaa dhowr maalmood ayay sii soconaysaa, marka ma doonay inaan sii dhex galo. marka Ethiopia awoodda Maraykanku ka soo siiyey Soomaaliya inay ku qabsato ama wax walba ay ku samaysto, nin walba oo lasoo doorto ama xildhibaan ha ahaado ama dowlad goboleed ha ahaado, in uu tago maxaa la yidhaahdaa Addis Ababa, waa ayaan darra anaga markaas nagu dhacday. aniga Ethiopia ma ka soo jeeda? maya, kama soo jeeda Ethiopia mar walba waxaan idhahdaa opportunity, waa fursad. Ethiopia 120-150 milyan ay noqonayaan, xeebo male, dekedeen ayaan isticmaali karnaa. laakiin saaxiibtinimada mutual respect aysan ahayn, waxaa lagu qaataa in lagu adoonsado ama slave aad noqotid. marka si aad u noqotid waxaa dhacaya hadda waxyaabo maaragtay Soomaalidu waa dad oo maaragtay leh karaama iyo dignity leh. dignityga ayaa adduunka lagu maraa, laakiin dignitygii hadda wuxuu isu bedelay in wax walba ay noqdeen waxyaalo raqiis ah ama cheap ah ama lacag hadday ahaato ama xil ay ahaato. maanta qof lemale dignityga ayaan ku socda, waxaan sameyn waan aragnay, madaxdii ka horeysaan aragnay, xildhibaanadii ka horeysa ayaan aragnay, wasiiradii ka horeeyay, wasiirada jooga ayaan aragnay. marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay dowladda Soomaaliya hadda waa inay hadashaa oo ay tiraahdaa, horta damagekii dhibkii uu dhacay, waa inay hadashaa oo ay tiraahdaa Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax inaga ayaan u dhiibnay Ethiopia, inagaan u dhiibnay. xataa hadday saas tiraahdo waxaa imaanaysa in dastuurkii gebi ahaan lagu tuntay, sababtoo ah shakhsiga Soomaaliya dastuurka wuxuu ka ballan qaaday in haddii uu dembi galo maxkamad waddanka lagu saaro, maxkamadda hadday ku caddaato maaragtay isla markaa xabsi la geliyo. ma jiro heshiis ka dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia oo dhigaya in la iswaadidaarsado dadka lagu shakisan yahay inay dembi ka galeen labada waddan. marka ma jiro. luqadda Ingiriiska waxaa la yidhahdaa extradition ayaa la yidhahdaa. wadamada qaarkood way leeyihiin, wadamada qaarkood male. waddanka ugu weyn oo inta badan aan wadamada kale lahayn wuxuu ahaa waddanka Brazil oo tuugada iyo dadka wax sameeya ay tagaan. marka
waddankii haddii sharci uu ka jira waddankeeni sida haddana loo sheegay sharcigaa ka jira nala yiri muwaadinkan soomaaliyeed waa soomaali waa soomaalida dastuurkiiba boqoray soomaali meeshuu jooga ha jooga kan South Africa jooga kan Maraykan jooga kan meeshuu joogaba mar walba waa jinsiyadiisa waa Soomaali marka 3 sano ugu dambeysay hadda waxa dhacday arin oo maaragtay ajiib ah oo waxa dhacday xataa waagi warlordska ay waddanka ay haysteen oo waddanka dagaal xun uu ku jiray waagi kala dambeyntu ay aad u yareed waagi sharciga uu aad u yareed waagi dhimashadu ay aad u badneed xataa ma dhicin shakhsi Soomaali ah oo wadani ah in gacanta loo geliyo Ethiopia ama Kenya loo geliyo marka qaabka ra'iisul wasaaraha maxaabiista meesha uu soo gudbiyay gabi ahaan way ka duwan tahay dad ku doodaya ayaan aragnay taas way ka duwan tahay waxay uga duwan tahay maxaabiistan dan ayaa ugu jirtay Ethiopia waxay ahaayeen petty crime ayaa la yiraahdaa wax dhibaato weyn saan ma aysan geysan waxay iska ahaayeen dad xuduudada lagu qabtay ama dad iyagoo waxadaya ama dad iyagoo airport ka dhoofay wax lagu qabtay ahaayeen marka xanuunka wuxuu ka imaanaya markii ugu horeysana ma ahan dawlad goboleedyada intooda badan dad Soomaali ay dhiibeen waxay isaga iibinayeen inay maaragtay yihiin maaragtay ay jecel yihiin ay la shaqeynayaan maaragtay waddanka Ethiopia annaga Soomaali haddaan nahay dadka aqliga la Ethiopia man agta may maxaad ku nacaysaa Ethiopia waxaad ku nacaysaa male Ethiopia Ilaahay baa daris naga dhigay waddanka qaabkay u maamulaan iyo siday wax u sameeyaan waa la ogyahay laakiin xogaa rajo ayaana soo gashay anaga haddii aan nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waddanka dalka iyo dibadda ku nool rajadaas oo ahayd in arimihii qaliijka aan meel aan ka istaagnay dawladeena ay maaragtay sharaf iyo qiimo ay uga timid meeshaas arinta Ethiopia ay ahayd intii hore madaxweynayaashii hore iyo mar walba Ethiopia aad jira madaxweyne Farmaajo markuu aad xataa waa ka soo noqday iyadoo arimo ay waddanka ka dhaceen awgeed marka Soomaalidu waxay ku maamahdaa abaar way baxaysaa ceeb ayaa daran ay ku maamahdaa maanta dadka waxay ka shakisan yihiin aniga ila soo xiriiray waxay leeyihiin Cabdinaasir dawladii maxay u hadlaada hadda waxaan maqlay wali ma arkin laakiin waxaan maqlay in xafiiska ra'iisul wasaaraha meelahaas in press conference lagu weydiiyay aysan ka hadlin marka ma waxaan leenahay 23 bishii la soo dhaafay oo asbuuc iyo hal maalin ay ka soo wareegtay wali الجواب سيدي للربيل لو ما هاي ما نامنسن هاي أنا يقول لي ما نامنسني مركز الدولة ده ما وحي لا هاي وحبنا جمجلين شعورته ضدك يو وحي أمينسيهين يو سيدي الدولة وأركان مرده كران تاس هدي أي نقطة وحي نقول إيسا إن كالسوني دي يو سودوينتي يجو هالسنة أي سن قارن أي كسر دماتو أنا يقول ملاي هاي الدولة ده ما أنت وحي قبل هذا كسر جدا ما يملي الدولة ده waayo dawladda wali afkeeda waxba kama hayo adduunka degdeg wax lagu sameeyo dawladda afkeeda waxba kama hayo waxba ma dhihin laakiin waxaan rabnaa muwaadinkan Soomaaliyeed haddii uu sharciga waddanka u yaala sharciga dariska u yaala u jabiyay in maxkamad la soo saaro qareen loo qabto xabsiga la geliyo haddii uu maaragtay waxba lagu waayo oo uu ka baxo laakiin haddii aan idhaahno ONLF meeshay ka timaadaba waa argagixis haddii aan idhaahno haddii qofka adiga argagixisada ku ah dad ayuu wuxuu u yahay hero Nelson Mandela waxa la dhihi jiray waa argagixis la dhihi jiray Gandhi waxa la dhihi jiray argagixiso dad ayaa maanta u aaminsan marka ma lagu taageerayaa qalbi dhagax hadduu ahaa nin bam ku xiraya jigjiga ama goday ama qalaafi maya cid ku taageeraysa male anaga Soomaali haddaan nahay ma doonayno DDS in dhibaato ay soo gaarto dhibaato annaga ayaa noogu filan maanta qofka Soomaaliga ee ku nool NFD ku nool Djibouti ku nool DDS ku nool meel walba adduunka oo banaanka Soomaaliya ku nool waxa tusaale u ah kaliya inuu arko dhibaatadii aan soo marnay rubac qarniga ayaa tusaale u ah bas marka qofkii maanta doonaya dawladda deegaanka Soomaaliya inay dhibaato ka dhacdo waa qofka Soomaaliga u nacsan ay u noqonaya qofkaas dhulka waa dhul Soomaaliyeed dadku waa dad Soomaaliyeed mar walba waxa wanaagsan in loo duceeyo leeyahay Ilaahay wax uu siiyay ha u sii kordhiyo leeyahay bas laakiin in dadkii ka soo dagaalamay dagaaladii 77 ka soo dagaalamay ku soo dhaawacmay xoreyntii goboladaas xilligaas ay jirtay wal heshiin kara adduunka la heshiiyo wadamo badan oo cadow isku ahaya heshiiye isku darsamay waa la sameyn karaa laakiin taariikhda Soomaaliyeed ayay ka mid tahay in marka la xaqiro ama qashinka lagu tuuro ama la yiraahdo waa qalad
macnaheeda ma ahan waxaa laga soo horjeeda dowladda deegaanka Soomaaliya laga soo horjeeda qofkii arkay 5 ama 10 sano ka hor jigjigasta ahayd maantana arka waa ku farxaya sababtoo ah isbedel weyn ayaa ka dhacay waxyaalo badan ayaa ka dhacay marka laakiin muwaadinka Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya hal la soo qabto maxkamad lama saarin de waxay noqonaysaa sidii Mareykanka dadkii Pakistan laga soo ururin jiray Guantanamo Bay la geyn jiray ay noqonaysaa waxa soo dhan soo duubay meel saan u dhig dowladda Soomaaliyeed maxay u hadli la'adahay dadkii aan la xiriirnay oo dowladda ku jira si shacabka aan maaragtay aan ugu sheegno ilaan warbaahinta ayaan ku jirnaa annaga dowladna uma shaqeyno dowlad mashaarna ma siiso dowlad maaragtay uma sacabtuna habeenay maalin laakiin saasay tahay dowladda Soomaaliya waa taageersanay waxaan doonaynaa waddankeena ma inuu noqdo marka dowladda kaliya laguma soo koobi karo nin bay Ethiopian gacanta u geliyeen mise maaragtay dad shacab baa la laayay kaliya laguma soo koobi karo dowladda waxyaabo badan oo ay qabatay ayaa jira waxyaabo qaladaad ay sameysay waa jirta laakiin tan oo kale waa wax aad u weyn ani kulay shakhsiyan Cabdinaasir ahaan aad ay ila weyn tahay arintan hadii ay jirto gacanta loogu geliyay Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhaga askari Soomaaliya shakhsi Soomaaliya 3 sano ugu dambeysay meesha ku noolaa dowladii Xasan Sheekh xataa wadanku ku noolaa oo la ogaa oo la daba socday haddana ma aragtay Ethiopia gacanta loo geliyay marka Ethiopia hadii gacanta loo geliyay Ethiopia category ama shaabada ku dhacaysa isaga waa argagaxiso ama terrorist marka Ingiriisku wuxuu yiraahdaa the person is innocent until otherwise found guilty qofka mar walba waa innocent waxba ma halaynin ilaa maxkamad iyo sharciga uu ku helo wixii ka soo baxa marka ma kula tahay qalbi dhagax in maxkamad aad sabab ku taalo inta qaran loo istaajiyo si loo soo saarayo oo maaragtay la dhihi karo marka tan qalbi dhagax kaliya ma aan asxaabti daawanaysa tan waa national humiliation watan humiliationka markii aad maqashaan waa dhulka lagu jiiday ereyga hadii aad maqashaan waa kaas shakhsigan qalbi dhagax yiraahdo waxa laga yaabaa intiina 700 ee iminka ay daawanaysa in aysan magaciisa aqoonin wali aan maqlin anoo kale aan waxa ugu horeysay maalintii la yiri waa la dhiibay laakiin waxyaalo waxa jiraan yar oo dadka qaarkood ama dowladda la taliya ama dowladda laftiga is leedahay waxa ma ahane carbetka hoostiisa hal la geliyo oo marka dambe kugu noqonay waxa aad weyn marka mahmaha ayaa jirta tabcan mahmaada safin kama sheegi karo dad sharaf leh baa daawanaya marka waxa dhacday a national humiliation dhulka ayaan lagu jiiday sarkaal Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay Soomaaliya dhiigiisa qoyskiisa oo meesha kaliya oo uu nabad ku heli karay inta laga soo jiiday sawiradiisa 2 askar oo koofi casal ah istaajiyay isagana muraar dilaac humiliation ka muuqda isaga kuma dhac waxay ku dhacday Soomaaliya oo dhan ay ku dhacday anigu inta badan ma ahe shakhsi ma aragtay oo emotional emotionka ima soo qaado waddanka Israel qofka hadii uu yahay Yahuud ama Jewish oo ma aragtay dambi meel kale oo ku soo galo wax walba oo dhacal qofkaas Jewishnimadiisa ayaa lagu ilaalinaa meel adduunka loogu celinayo bayraatay ma jirto meel adduunka loogu celinayo bayraatay ma jirto Jewishnimadiisa ayaa lagu ilaaliyaa marka hadii dhiig Soomaalimo kugu jiro hadii aad tahay qof wanaagsan hadii waddankaada jeceshahay qabiil haduu lugtaada hoosada yaalo madaxaaga dushana uu Soomaali yaalo bal eeg sawirkaas labada askari oo koofi gaduud ah ay istaagan tahay qofkaas bal fiir hadii aad waxba dareemin iska daa dawlad Soomaaliyeed iska ilow Ethiopia iska ilow gaalkacyo oo meesha laga dhiibay iska ilow bal sawirka fiirso
sawirkaas fiirso oo ninka Soomaaliyeed meesha uu taagan yahay oo noloshiisa filin la soo hordhigay oo meesha ku sii socdo waxa ku dhici doona bal fiirso haddii maanta Uganda ama Kenya ama laga soo dhoofin lahaa Turkey ama America anigu xanuun ma dareemi lahayn kulley laakiin maanta magaaladii aan ugu magac daray everything wrong in Somalia ayaa maanta laga kaxeeyay ninkan haddii aad rabtid wax walba everything wrong about Somalia waxaad ugu tegaysaa magaalada Gaalkacyo ma ahan reer Gaalkacyo inaan yihiin dad xun reer Mudug inay yihiin dad xun laakiin marmarka qaarkood Gaalkacyo iyo Puntland iyo goboladan kale intana loo sameeyay waddankeena lagu burburiyay at least waxay sameyn jireen way bixi jireen carabti iyo meelahaasay waddankii waxay doonaan soo saxiixi jireen at least waxaa rabay inay yiraahdaan ninkan waa nin Soomaali ah anagu amaan noo yahay haddii galmudug aan nahay ama Puntland ama waxay ahaadaan Hirshabeelle anagu noo yahay dowladda Soomaaliya waxba uma sheegin marka ma ciidamo oo koofi guduud ayaa looga soo diri lahaa oo cadaada ama Gaalkacyo la keeni lahaa marka sawirkaas aad ku laabanaysaa waad fiirinaysaa inta daawanaysa 700 qofood kulligeena waxaan lagu sameeyay humiliation lagu sameeyay marka we are humiliated dhulkan lagu jiiday ereyga ugu dhow ee humiliation lagu fasiro af Soomaali waa hebel dhulka lagu jiiday kulli marka dhulkan lagu jiiday dhamaanteena gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed waana la qaawiyay markana la qaawiyay iyo calankii Soomaaliya ayaa waxaan looga dhigay xarig qoortan looga jiiday anagoo qaawan sawirkaas markaad aragtaan bal fiiri hatta waxa dhacay oo lagu sameeyay Cabdikariin Sheekh Muuse waxa lagu sameeyay asaga wax ma soo gaarin wax isaga soo gaaray haba yaraatay ma jirto ani ilaahay hadda waxaan taaganahay eed ma saarayo dowladda Soomaaliyeed ilaahay hadda waayo afkoodan rabnaa inaan ka maqalno ilama afkooda aan ka maqalno dowladda Soomaaliyeed ee annaga aan taageersanahay ilaa iyo hadda oo aan fursad aan siinayno waxba ka sheegi mayno waxba oran mayno marka dowladda Soomaaliyeed qalad ma gali kartaa dowladda Soomaaliyeed qalad way gali kartaa qof aan qaldamin waa ilaahaygiina abuuray kaliya qof kasta ayaa qaldami kara dowladda Soomaaliyeed qalad way gali kartaa laakiin qaladkan ay sameysay dowladda Soomaaliyeed ma la cafin karaa qaladkan waxa lagu cafin karaa kaliya in Cabdikariim Sheekh Muuse haddii la dhoofiyay oo Ethiopia la geeyay ay tiraahdo arintan midnimada Soomaaliyeed nabadda Soomaaliyeed ay halis u keenaysaa hana loo soo celin lahayd oo mar dambe aysan dhicin dowladda waxa laga yaabaa in laga cafiyo haddii iyada sameysay dowladda laakiin suspicionka ama maaragtay cabsashada jirta hadda waxay tahay dowladdii maxay u hadli laadahay dadka aniga aan la hadlay oo dowladda ku jira jawaab ma siin inta badan jawaab ay siin jireen marka maxaa noqday hadda ma xil baan doonayo la idiida maya ma lacag baan doonayo la idiida maya informationka wuxuu ahaa waxa wanaagsan ee dowladda sawirkay ugu dambeeyay waad aragteen madaxweyne Farmaajo oo aniga aan ogahay inuu yahay a decent human being oo leeda jooga ayaa sawirkay ugu dambeeyay aan soo geliyay meesha oo had ilaa hadaan taageersanahay laakiin waxaan rabnaa in bahdilaadan lagu sameeyay in dowladda ay ka hadasho it's not about qabiil iyo qabiil hebel iyo qabiil nobody cares qabiil Ethiopia marka lagu dhiibo they don't care qabiilkaaga waxa tahay Soomaali baa tahay waxa tahay male waxa doonta lagu sameeynaya marka maanta waxaan kaga siiniyad fiicnaan lahaa aniga iyo dadka kale ee Soomaalida ah in commandoska ama ciidamada sida kala duwan loo tababaray Ethiopia hadday Gaalkacyo diyaarada ila imaan lahayn ninkaas email kala bixi lahaayeen xogaa waxaan dhihi lahaa well done shaqo fiican ay qabsay iyo wala baxay laakiin dhaqanka Soomaalida diinta Islaamka ma dhigto qof oo magangeliye kugu yimaaday in aad banaanka u soo tuurtid taas kuma dhacayso
ninkan waddankiisu jooga, ninkan Masar ma joogin, Italiana ma joogin, Soomaaliya iyo jooga Gaalkacyo, magaalada Gaalkacyo jooga. marka bahdilaada dhacda waxay tahay sawirkaas fiiri. marka ma doonayna dawladdan hadda curdanka ah oo hadda dhalatay oo runtii shaqo fiican qabatay in sawirka kale loo xasuusto. sawirkan wuxuu noqonayaa symbolkii, wuxuu noqonayaa maaragtay wuxuu noqonayaa falaartii xaawataako naaska badaxu kaga taagnaa, dhagax tuurkii wuxuu noqonayaa symbolkii maaragtay sayid maxamed cabdulla xasan, wuxuu noqonayaa wax walba oo Soomaali ka hadlaba ku mid noqonaya. ninkan ma ahan nin maaragtay oo Soomaali aan ahayn oo meel kale ka yimid ma ahan. anaga hadda dhib ayaan haysta, lacag ma haysano, dawlad oo dhisan oo fiican, ciidamo fiican ma haysano, laakiin Soomaalidu qarnigii 19aad markii laga hadlay xataa waxaa la yidhi waa a dignified people, dad karaamo leh. karaamadu lacag ma ahan. marka karaamada aad leedahay waxay tahay maanta adigoo oo maaragtay gaajo ku haysa, qof kaasi gaajaysan ayaa rootiga la qaybsanaysaa. karaamada aan leenahay waa kaas. marka Gaalkacyo markii qalbi dhagax laga kaxeeyey, karaamadeeni oo dhan iyadoo aan u jeedna ayaa dhulka lagu jiiday, bahdilaal lagu sameeyey. marka mas-uuliyaddana meel unbay taalla. wax walba oo dhaca qof ayaa ka mas-uula ama dad ayaa ka mas-uula. marka haddii dembi aan galo maanta oo aan ka aamuso, aniga mas-uuliyadda anay ila taallaa, anay maaragtay ugu soo laabanaysaa. 3 sano ugu dambeysay cabdikariim wuxuu ku noolaa isaga iyo qoyskiisa Soomaaliya waagii xasan sheekh uu joogo. hadda maxaa dhacay? dawladda waxa u fiican, aniga shakhsiyan aan ku waanin lahaa, in ay soo istaagto, warbaahinta usoo istaagto oo ay tiraahdo shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa qalad ayaan galnay, way naga halaawday, hal la cafiyay yiraahdaan dawladda. haddii arrintaas iyaga ay ku dhaqaaqeen oo ay sax tahay, weli ilaa waxba kama hayno. waxaa dhici karta xataa in maaragtay qalbi dhagax godka jilac lagu hayo, ama xabsiga dhex lagu hayo, ama magaalo Soomaaliya kamid uu joogo. weli ma ogin. wasiirka warfaafinta Ethiopia hadalkiisa wuxuu ku yiri Voice of America Amharic translation lagu soo sameeyay, wuxuu yiri ha gacantana ku jira ayuu yiri. weli sawirkii ugu dambeeyay laga soo daayay ma arkin sawir isaga ah oo isagoo Ethiopia lagu hayo. laakiin fursadda oo taas ay ku dhacday, niyadda waxaan ku dhisaynaa inuu weli Soomaaliya joogo, laakiin waa 90% inuu Ethiopia joogo meesha lagu hayo. marka maxsan baa loo sameynaya qof meeshaas lagu qabtay? maya, axsaan loo sameyn maayo. waxyaabihii ugu maaragtay ugu naxdinta badnaa, ugu maaragtay foosha xumaa ee aan arko waxay ahayd ereygan oo aan aadan ula yaaba runtii. xataa waagii ayaa la yiri oo warlordska waddanka ay ka jireen waagii waxaan ka hadlaynaa 5 sano ka hor, 10 sano ka hor, 15 sano ka hor ma dhicin in qof Soomaali ah la geeyo Ethiopia loo gudbiyo. ma markii ugu horeysa? maya, ma markii ugu horeysa maan. waa ka duwan yahay. dad waxyaalo badan ayaa dhaca. dadka intooda badan waxay yiraahdaan oo ma ninkan kaliya ugu horey, dad badan ayaa saan loo galay. ma ahan saas, adduunkaas uma shaqeeyo. asbuucii hore waxaan ka hadalnay bariira dadka lagu laayay, dad badan ayaa laayay. may adduunku wuxuu socdaa waxyaalo waxaa jira la isku day in la qariyo iyo waxyaalo aan la qarin karin. sarkaal buu ahaa, waxay raalli ahaa. sarkaal buu ahaa, sarkaal Soomaaliyeed buu ahaa. isaga iyo qoyskiis waxay ku noolaayeen meeshaas. dadka Soomaaliyeed ee ka xanuunsaday, ee dareemay xanuunkan aad u weyn, kama xanuunsanin because qabiil bay ahaayeen. kama xanuunsanin because hal qof ayaa la xiray, maalin walba ay dad la dilaa iyo ma kama xanuunsanin. waa dignity-ga iyo karaamada Soomaaliya ayaa dhaawac loo geystay. waan aragnaa diyaarada inay waddanka soo galaan, dad iska dilaan shacab ah oo lagu tilmaamay inay shabaab ahaayeen. dad ayaa xataa ka xumaada oo maaragtay aan waxba u arkin Soomaali la laayay. marka tan dignity-gii iyo sharaftii Soomaaliyeed ayaa meel lagu dhacay. calankii Soomaaliyeed ayaa banaanka la dhigay, meel banaan asaan, ari iyo lo igeel ayaa la ku kaaday ayaa la yiri. marka ma ahan
sheekadan ma ahan, it's not about cabdikariin sheekh muuse keliya ma ahan, magaciisa waad maqli doontaa marar badan, laakiin ma ahan, it's not about him, asaga ma ahan. meeqa soomaali kala laga dhoofiyey waddanka maalinta calanka Ethiopia loo dabaaldegayay waxyaalo badan ayaan aragnay. calanka Ethiopia ayaa magaalooyin Soomaali ah looga dabaaldegayay isla xilligaas maraakiibtii shacabka Soomaaliyeed ka soo daadguriyay Yemen iyo meelaha kale ayaa loo diiday dhulkoodii Soomaaliyeed in ay soo degaan. isla xilligaasna waxaa la sameynayay in maxaa la yiraahdaa calanka Ethiopia meesha loogu dabaaldego. marka maxay tahay dadka tan bal isweydiiya maxay tahay marka dadkii waddanka u soo halgamay maxay u dhinteen 77 dagaalka ayuu ku jiray ayay askariga ani ma aqaan ma xaqiijin karo qalbi dhagax wuxuu kamid ah dagaal ku jiray. marka ONLF haddii dad ay argagixiso u tahay haddii dad shacab ay laayaan oo dad masaakiin ay dilaan marka cid taageeraysa ma jirto oo Soomaaliyeed. laakiin saan hore u sheegay Gandhi iyo Mandela iyo Hamas iyo Hezbollah dadna waxay yiraahdaan waa irhaabiyiin waa argagixiso dadna waxay yiraahdaan waa freedom fighters. marka adduunka black and white ma ahan. marka waan ku dheeraaday. waxay eeda soo saareen oo yiraahdeen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Bashir Goobe oo runtii aniga aan ogeyn National Security Advisor ayuu yahay Bashir Goobe iyo Head of NISA Mrs. Sambalushi ayaa eeda la saaray. qoraalkan waa qoraal oo ay soo saareen afhayeenka ONLF oo haddana idin qiimo dhow ayaa meesha la soo saaray. dastuurkii Soomaaliya qaybihiisii 8aad 12aad 13aad 22aad 25aad 37aad 126 xuquuqda shakhsiga Soomaaliga haddii aad eegtaan wax walba waa la burburiyay. marka kaasna wuxuu ka mid yahay calankii ka sokow dastuurkii ayaa meesha la soo dhigay. dastuurkiina waa lagu dul istaagay. waxaa la yidhi dastuurkiina waxaa loo keenay ari ayaa loo keenay waxaa la yidhi ku dulkaadi ayaa la yidhi. marka arrintan maanta hadiisaan lagu daayo cabdikariin sheekh muuse keliya ma ahan Soomaali badan ayay taabanaysaa Soomaali badan. marka wax alla wixii aan ka aragnay dowladda ma doonayno in ay burburiso arrintan ma doonayno. dowladda Soomaaliyeed waa in la taageeraa. dowladda Soomaaliyeed waxay dan ugu jirtaa in la taageero qof walba oo Soomaali inuu taageero. laakiin taageerada macnaheeda ma ahan 23 arrintan dhacday xaqiijinta ay xaqiijiyeen Ethiopia waxay ahayd dhowr maalmood ka hor. dowladda Soomaaliya weli kama hadlin. laakiin press conference ay sameeyeen xoogaa dowladdan oo lagu yaqaanay press conference inay meel walba ay ka dhiibto aan ku soo celiyay erigaas oo Facebook social media website-yada idaacadaha meel walba ay ka dhiibto xoogaa waxaa laga dareemayay inay nervous ay noqdeen ama nervous ay noqdeen. marka nervous markii aad noqotid dadku shaki ayaa sii gelaya. marka haddii ay isleeyihiin arrintan waa laga aamusayaa arrimahan oo kale dadka ma iloobaan. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa horta in cabdikariin sheekh muuse uu gacanta cadowga uu ka badbaado sababtoo ah Ethiopia isaga kaliya maahan dad badan oo kale ayaa lagu qabtay. dad xataa Ethiopian ah oo dhalasho Ingiriis leh ayaa iyagoo meel transit ku maray lagu soo qabtay. marka waddanka haddii Interpol sharciga jira cabdikariin hadduu ka dhoofi lahaa garoonka Gaalkacyo ama Cadaad ama Muqdisho oo Interpol ay raadinayso waa la qaban lahaa. Interpol markay raadinayso international police waxaa loo soo diraa wixii evidence markaas lahayo ayaa la soo diraa ninkan waxaa leeyahay dad ayuu wuxuu ku laayay goday ama qalaafe ama dhagax buur ayuu ku laayay waa la soo dhigay maxkamad la soo saaro evidence la keeno hal la xiro xataa xabsi da'na lagu xukumo. laakiin shakhsi Soomaali ah oo Soomaali waddanka wax u soo qabtay oo veteran ah dadkan veteranka adduunka qiimihiisa loo qiimeeyo North America ku arkaysan ciidamada qalabka sida ka mid ahaa yaa sidii arigii oo kale inta saan loo soo qabtay yaa waxaa la geeyey maaragtay God knows meel la geeyey oo sawir laga qaaday. weli sawirka laga qaaday symbol ayuu leeyahay sawirkaas laga qaaday. wallahi sawirkaas markaan soo xasuusto I get emotional ayaan noqonaya wallahi. sawirka laga qaaday ee Facebook oo meel walba yaala symbol ayuu leeyahay. symbolka uu leeyahay laba askari oo koofiye gaduud ayaa halka taagan. koofiye gaduudda waxay ahaayeen symbolka ciidamada qaaska ah ee madaxda Soomaaliyeed. haddii arrintan booliis ayay qusaysay ama ciidamadana mas-uuliyadda radka ay qusaysay ma qusayso
ciidamada simbolka Soomaaliya koofi gaduud koofi gaduud iyaga kala kuwa waxa jira dhaxda ay gaduud u tahay iyo kuwa ay gaduud wada tahay kuwii ayaa lagu agsawiray bal sawirkaas haddii aad eegtid haddii aad doonaysid inaad tijaabisid Soomaalinimadaada isirkaaga jinsigaaga Soomaalinimo sawirkan qalbi dhagax laga soo qabtay oo meesha fadhiya oo sidan u fadhiyo oo macaawisi wuxuu xiray ma aqaan dharaas xataa waa fiirin kari waay bal fiiri waa taas waxa la yiri laba farood ayaa saan la yiri Soomaaliyeed tihiin laba farood ayaa saan la yiri maxaa tiina yaa la yiri magaalooyinkiina ugu caansanaa gaalkacyo ayaan qofkan doona aan ka soo kaxaysan karnaa la yiri maanta waxa u fiicnaan lahayd in ciidamada special services ka Ethiopia ay leeyihiin oo well trained inay u yimaadaan afduuban ama xataa ay dilaan markaas laakiin inaan dilo u baahnaa yaa la yiri ninkan waan silcinayna ayaa la yiri wala soo qaadayna laakiin Ethiopia waxaan ku eedna male Ethiopia wadankeena aad ay habi u tahay Ethiopia iskoolada Soomaaliya waxaan loogu dhigi jiray aad xasuustaan dhamaantiina kala qaybiyo u tali marka aqligaaga bal fiirso waxa dhacay hadda wadankeena wax ka dhacay waxyaalana ay hoos yeelan waxba wax ay keenan waxa dhacday in wadankeena Soomaaliya aha gobol loo kala jiray ay noqotay goboladiina ay maaragtay ama Imaaraad ama Arab ama ay la maaragtay ay la shirayaan ay waxay doon la saxiixanayaan Ethiopia wadanka markuu federaaliyad diiday dawlad federaal ah strong central government leh oo gobolka xukuumad qof diiday male Nigeria America German wadamo badan ayaa ku shaqeeya federaalka Ethiopia lafteeda ku shaqeysa marka Ethiopia state iyaga kamid ah inta madaxweynahooda uu xamar u yimaado wax ma la sameyn karaa maya taasi fiican u fiirso marka Ethiopia aad ay ugu faraxsan tahay Soomaaliya say tahay situationkeeda hadda qof walba hadda calanka Ethiopia ya looga dabaldegaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya qof walba waa yaqaana yaa looga dabaldegaa marka tan markay dhacday iyaga ogaadeen waxa xusuus mudan oo kale madaxweyne Farmaajo markii uu tagay Addis Ababa press conference ay sameeyeen ama ay la hadleen warbaahinta eray ayuu ka dhawaajiyay Haile Mariam ninka la yiraahdo ee ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri hadda wixii ka bilowda ma dhacaysa ayuu yiri state goboladan Soomaaliya ee sidida la baxay kamid ah in ay dawladda Ethiopia si toos ugu yimaadaan oo heshiis ama wadahadal la galaan mar walba waa in ay soo maraan oo waraaq aan ka helnaa Muqdisho aan ka helnaa ayuu yiraahdo arintaas runtii aniga aadan ugu farxay xogaa surprise ay la noqotay laakiin aad ayaan ugu farxay waxaan ugu farxay waxaan ogaaday madaxweyne Farmaajo inuu yiri sheekooyinkan dadkan iska socda ku imaanaya anaga yeelimayn marka Ethiopia hadda in consulate ay ka furato ama safaarad ay ka furato meesha ay doonto consulate no big deal waa laga furan karaa magaalada dowladda Soomaaliya laakiin hadda waxaan maqlaynaa oo aan aragnay in arimihii siyaasadda arimihii militariga arinkii diblomaasiyada aan aragnay in dowlad goboleedyada ay waraaqo ay qorayaan oo ay leeyihiin maxaa la yiraahdaa ay leeyihiin waan ka soo horjeednaa meesha dowladda Soomaaliya ay ka taagan tahay arimaha qadar ay ka taagan tahay ka soo horjeednaa waxaan doonaynaa in Sacuudiga Imaaraadka la safto hadii maxay u diiday gobolada kale inay marka dambe yiraahdaan ciidamo waxaan keenaynaa oo sheey waddan kala soo deganaa koonfur galbeed ama Hirshabelle ama Jubbaland maxay u diiday marka arinta yaan ka bixin intaan soo gabagabeynay hal sax ay ku dhowdahay marka arintan haddii aan israada ka hadal maxaa ku dhacay Soomaaliya waqti badan ay qaadanaysaa wadanka waa loo tashtay wadanka maxaa la Soomaaliya waa loo qaylay haddii aad maqashin literally waa loo qaylay wadanka marka waxa loo qaylay waxaan aragnay dad weak ah oo dignity aan lahayn qofka wuxuu ku nool yahay ereygii ahaa abaar way baxaysaa ceeb baadaran oo Soomaaliya ku maamulada marka dignity-ga waa karaamada marka dignity haddii ay ka lunto maanta waxyaabaha kugu muhiimsan waxay tahay lacag yar oo lagu siiyo xil yar oo lagu dhiibo laakiin adigana gurigaaga intaad tagtid si fiican u jifan maysid sababtoo ah waddankiigaad gadatay maanta arrintan ku dhacday qalbi dhagax berri adiga aniga qof bay ku dhacaysaa Soomaaliya hore ay ugu dhacday wayna ku dhici doontaa marka maxay arkeen dadkii maamulka loo dhiibtay dadkii madaxda ahaa dadkii wixii ahaa dadkii la iibsan karo qofkan haddii la iibsan karo iibsiga waxay tahay in lagu yiraahdo waxaan sameeyay haddii aad sameyn kari weyd waxay ku noqonaysaa in adiga ay ka daba timaado marka si aad qoyskaaga iyo noloshaada iyo raaxadaada iyo lacagta yar aad heshada u badbaadisid waxaad leedahay waxaan waa in lagu dhaqaajiyo marka arrintan sidaan u arko waxay tahay intaan soo gabagabeynin waxay ahayd marar badan ayaa jirta aan maqli jiray aan ka maqli jiray goboladan meeshan gaalkacyo iyo galmudug iyo waqooyi meelaha ka maqli jiray
waxa muwaadiniin Soomaali ah ayaa wadanka maaragtay Ethiopia gacanta loo geliyay lagama hadli jirin lagama sheekeyn jirin laakiin hadda waxa la soo galay age waqti waxa la soo galay social media iyo internet iyo censorship ma jiro waxa ka sii foolxun maanta dad badan magac inaan sheego ma rabo dadkiinan aqliga saliimka leh ee daawanay waad fahmi kartaa waxa ka sii foolxun mataqaana maanta anagoo aamusan dowladdeeniyo aamusan anaga oo qarankii Soomaaliyeed ilaa qaranka Soomaaliyeed dowladda maana qof walba oo Soomaali anagii oo aamusan tusaale TV-yada ka aamusan bal indhihiina si fiican u fura adduunka sharaf iyo karaama yalwi TV-yadii Soomaaliya oo wax walba oo dhaca ka hadli jiro ka aamusan inta farshaxaniin dadka farshaxanka sameeye ee la yaqaan it's not necessary magac inaan sheegani oo la yaqaan aniga xataa mas'uuliyad ayaa isaaran sababtoo ah 800 qof ay daawanaysaa mas'uuliyad 800 oo Soomaali ah haday daawanayso 40,000 oo kale oo sii daawanaysa mas'uuliyadaas waxay saaran tahay hadaan iska aamuso waxaan noqonayaa waxaan micnaba lahayn ana waa la iibsaday waxaan noqonay dignity-ga waan iibsanaya laakiin TV-yadii shabakadihii dadkii magac lahaa dadkii Soomaalinimada lagu tilmaamayay farshaxanka dadka sameyn jiray wax walba waxay noqdeen marka waxay u kala baxeen dignity-gii iyo karaamadii oo luntay iyo afwax xun xisho ayay noqotay anaga ma doonayna dhibaato inuu maanta Ethiopia no ma doonayna Ethiopia dhibaato maanta Kenya ma doonayna maya Djibouti ma doonayna maya laakiin sharafta iyo karaamada calanka Soomaaliyeed iyo karaamada shakhsiga Soomaaliyeed hadii la soo galo hadii aadan la ooyin oo aadan dhihin aan ooyay albaabka ee xira aadan dhihin waxaad ka mid tahay iyaga ka mid tahay kama hadli kartid ma ahan macnaheeda ana number 1 waxaan hubaa inaan ahay shakhsiga dawladda Soomaaliyeed ugu taageersan oo ilaa hadda aan taageersanahay oo aan doonayo wadankeena inuu meel u gaaro oo dhibka aan ka baxno laakiin inaan Facebook-ga iska dansado aan iska aamuso ama website-kayga ama TV-gayga ama meeshan farshaxan ku qoran iska aamuso arintan aan ka aamuso waxay noqonaysaa ama waan baqayaa maxaad ka baqaysaa ilaahay baa nafta keenada dilay qof baa irsaaqada ama waxyaabii aad heli jirtay community ee ka hadlaysa carar waa kaasi TV-yada qaarkood waa taqaanaane debate ka sameeyna arrintan carar waa kaas ha hadlaan kama hadli karaan sababtoo ah hal eray oo xagga Ethiopia ku soo yiraahdaan wax ku dhacay ama lacagaha yar yar kala siiyay laga qaadaya kuwa kalena waa sidaas marka dadkaas ayaa waxay ku leeyihiin marka dambana inta la soo istaago calanka Soomaaliyeed saan wada calanka Soomaaliyeed sidii lagu soo helay dadkii u dhintay rafaadka u soo galay 60meeyadii 70meeyadii 80meeyadii u soo maray dadkaas oo kale maanta hadii ay maqli lahaayeen waxa dhacay qabuuraha ay ku jiraan ay ka soo bixi lahaayeen hadii Ilaahay awoodaas uu siiyay marka maxay tahay baleesha maxaa ay galama dhihi karna marka what is I got to do with me gurigaygaan joogaa ilmahaygaan korsanayaa raaxaan ku nool lahay maya aday ku imaanaysaa berrito intay kugu imaanaysaa maanta nin Ethiopian yan isla hadlayna arrimahan ka sheekaysanayna wuxuu yiri I'm sorry Uday Abdinasir we are more powerful than you we can do whatever we like runta wayanda you're absolutely right my Ethiopian brother waa runtaani waa sax waa naga awood Ilaahay baa laakiin waa naga awood weyntiin in ma aragtay qof Soomaaliyeed oo askari wadanka ka ah askarta qaabka loo qiimeeyay in maanta qoorta sida diiq loo soo qabto oo lagu agsawira ciidamada koofigid lagu agsawiro oo la soo gudbiyo waa naga awood badantii waa noo sheegateen laakiin awooddaas waxaad hesheenaan dhahay albaab ayaa lidin furay facility ayaa hesheenaan ma dhici kartaan in aad isku daydaan in wadankii aad soo gashaan haddii aadan ka helin ma aragtay first time markii waan xasuusanaa ay Muqdisho ay soo galeen aniga waxaan dhihi karaa personally Abdinasir ahaan waxay ahayd one of the worst thing aan arko markaan arkay kaariyaashii Ethiopiaanka oo caasimadii Soomaaliya ay soo dhex galeen oo yiraahdeen wow this is Muqdisho ay yiraahdeen dadna ay leeyihiin jaalayaal oo soo dhawaad u saxabtumayaan marka dadka wax isdhaysaa ma aawi qalbigii aawi dadkii ka dhashay aawi Sayid Maxamed Cabdul Xasan Axmed Gurey Wilwal General Daud ma aragtay Sheikh Xasan Barsan dadkii ka dhasheen aawi Xawtaako dadkii ka dhasheen aawi marka maxay tahay madaxaan noqonaya madaxweynaha noqonaya ra'iisul wasaare noqonaya inta noqonaya waxaan noqonaya maxay tahay sababta loo gudbiyay hadii ay jirto qalbi dhagax bal dawladda ka jawaabto aniga kulli afkayga ka haysan maayo waxaan awood yar ayaan leeyahay
وإلهي يسي ما حيت هاي إن كن قفوت إذنكم أدين الله الله إذنكم أسيق بسان تذكر كنت حلقة رأي قدين كدو أنتين أيا يري ننكاس إلى سو هذا يري ننكاس ما حد يقول دودي يسوي يصير مركز يقول أرجعسوا هاي ما يبي بانري ولا جاي من أرجعسها لكن ده قف والبوس صعدها دي أنا وأرجعسوا واحد عيسى أرنتي كذا عادي بري رأي عيسى أو ليري مساكين تبر ليدا ليري يذكروا التي في أنت سوف ريستين أو وحيرة هذين قبيلة استقالة أو أنت وحاس وحين نقول استانبا شاب يقول لجيسا مكة شاب ده سيقول لجيسا مركا مجرته هشيس ولا حياة مركا من صوح ريا إذن كو آدم ماسن حال صعيان سجونا ومالين إيد أما دوني وقت جينا قالين أنا كقرته مجرته أيوه هشيس كله حياة سوماليا إثيوبيا لجيا إن ليس وذا سدو دت كلوجا شك سيني هاي إن دم بيو كلا جلين لبض الدل ميتكول dad badan oo Soomaali dambi ka galay iyo jira oo Addis Ababa iyo meelahan kala ku nool bal inaan keeni karno aan isku dayno anagana markaas tan kale oo naxdinta badan waxay tahay ereygan af Ingiriis lagu soo qoray oo la yiri The Somali government has set a new black record on a vile precedence in the history of the Somali nation by becoming the first president of Somalia to hand over a fellow Somali to enemy of Somali nation. Marka Ilaahay waxaan ka bariyaa waa maalin barakaysan oo qiimo leh waxaan ka bariyaa taariikhda inaysan u soo galin madaxweynaheena ra'iisul wasaaraheena national security Bashir Goobe iyo Mr Sembolosh inaysan taariikhda u galin inay noqdeen dadkii muwaadin Soomaaliyeed Itoobiya Ilaahay baan ka bariyaa taas weli waxa qalbiga ku jirta in Soomaaliya meel kamid ah uu joogo oo dawladda ay sugayso niyadeeda taas ayaan galnay dawladda ay leedahay hal isku dhaxyaaco kadib ay soo saarayaan maxaad ku hadlaysaa ninka halkan uu joogo ay yiraahdaan laakiin 10% ay noqonaysa kaas 90% sidoo sheegay wasiirka faafinta Ethiopia wadankooda la jooga waana markii ugu dambeysay oo la arko Ethiopia iska daayay qof oo NLF ah qof iyaga ka soo horjeeda iska daayay حتى قف لوجا شكي وحيلا قاركود لا أركي ماي تاسو واحد ويدينا يسان دتك يقانا يقول كان سوماليا دي وريها بقر كبرتمها اللي يريدو أو مقدشة إذا كسان تياتر كهالي جري وريه وينها روايتها كهالي جري ويدي مركز جد كجلعوا أو كن كسي هوسي اللي قلنا يلو أركي ماي نور الشاطئ بدنا يكون هذا إسكداي قف سومالي ناشونال إسكداي دت أو هذا الله هيستو أو بريتش أما كنديان أمريكان يجري marka taas waxaan Ilaahay ka bareynaa in taariikhda aysan u galintan ereyga aan soo qor wuxuu ahaa waa bilowgii dhamaadka runtii waa erey af Ingiriis laga soo turjumay is the beginning of the end waa erey aad muhiim ah oo Ingiriiska siyaasadda ay u isticmaalaan marka Ilaahay kama dhigo beginning of the end dawladda Ilaahay kama dhigo laakiin maanta oo maalin ciid Carafa ah waxaan ku faraxsanaan lahayn in dawladda Soomaaliyeed ay soo fadhiisato press conference oo ay tiraahdo askarigan qalbi dhagax anaga ayaan bixinay ama qalad ahaan ayaan u bixinay ama si sax ayaan ku bixinay sharciyan la tiigsanay ilaan si sax aan ku bixinay ma dhici karta sababtoo ah maxkamaddu in soo saaro dastuurka hadii lagu laabto dastuurka hadii aan leeyahay alla iska tuuro gooniga noqonaysa laakiin haddii sheekada ay saansi ahaato kulley damage aad weyn ama dhibaato aad weyn ayaa dhacaysa marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa wadankeena ma aragtay in sharaftiisa iyo karaamadiisa lacag ma haysano nabad ma haysano waxaan ku nool nahay karaamada iyo sharafta ayaan ku nool marka sharafta iyo karaamada Ilaahay noo soo xilay laakiin arintan mahmah ayaa jirta idin karana taqaanan ma doonayo gabdho iyo wiilal ayaa ku jira ma aragtay hortooda Ilaahay kama dhigo waxaasan u maleynayay waxaas igu noqotay Ilaahay kama dhigo waa fahmi kartaa maamaha inaan sheego looma baahna waxaas qof waxaas filay inuu sameeyo waxaas ay ku noqotay ee noqonaysa tan waxa iska ahaan lahayd Abdi Karim waa very common name Sheikh Musa waa very common name laakiin Abdi Karim Sheikh Musa si fudud ayaan ku iloobi karnaa laakiin waxaan iloobi karin qalbi dhagax qof aad iloobi kartid maaha qalbi dhagax ereygaas haddii aad ku qortid Google aad ku qortid trending ayuu noqday for wrong reason uu noqday trending marka ma doonayno in qalbi dhagax uu u noqdo
meel walba oo dowladda Soomaaliya lagu xasuusto in la yiraahdo qalbi dhagax la yiraahdo lagu soo xasuusto askariga Soomaaliyeed askari Soomaaliyeed ayuu ahaa marka waan jeclahay inaan barnaamijka aan ka baxo laakiin ma doonayo inaan ka baxo askari Soomaaliyeed ayuu ahaa aniga siyaasad ahaan waan aaminsanahay DDS dhulka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed inay nabad iyo barshbash iyo barwaaqo ay ku waaraan nabad ayaa u taala Ilaahay u siisaayay laakiin waxaan negotiation aan ku sameyn karin aniga shakhsiyan anoo wadani Soomaali waxba aan xil aan haynin lacag aan haysanin waxba aan hayn waxaan adduunka ku marnaa waa dignity-ga sharaftaas laakiin Ethiopianka markuu dhaw idinka awood badan run baa sheegtaan waa naga awood badan tahay marka gaalkacyana hadda kor markaan idhi everything wrong Somali gaalkacay ka dhacaan dad ayaa ila yaabay waa magaalada kaliya ee xuduud Soomaali uu ku yaalo Soomaali xuduud yeelatay waa London oo qabiil la yiraahdeen xuduudan ka rabnaa qabiil dhalinyarada lagu laayay wax walba ka dhacaan balaayadan ay ka dhacdo marka maantana iyadoo aan ognahay dad 90% dad fiican ay ku nool yihiin dad wanaagsan cid ay ahaadaan maantana taariikhda waxa u gashay in qalbi dhagax magaaladoodii laga kaxeeyo oo Ethiopia gacanta loo geliyo hadii arrintaas ay jirto Soomaaliya maalin madow ayaa soo martay maalmo madow ayaa soo maray dhibaato ayaa soo gaartay dad ayaa waxay yiraahdeen dadka dhintay maxaa looga hadli waayay dadka sidan waxa looga hadli waayay qofka dhintay waxa la yiraahdaa Ilaahay u naxariis waaba la aasaaba kabihiisa dhaama ay kuma maalan Soomaalida laakiin intuu uu shakhsigan iyo kuwa kale isaga ka horeeyo la kaxaystay ay nool yihiin waxaad ogaataa calankii Soomaaliya dhulka iyo yaala dhamaanteenana bahdilid humiliation in lagu sameeyay inagoo qaawan ayaa wadadan lagu jeeday marka kooda luuliya markay timaado calamadii aan soo qaadano meelahan ku heesno wadankayga jeclahay taalada dariiqdaasna aan tagno maanta waxyaabaha ugu fooshan waxay tahay dad qabiilistayaal ah oo la yaqaano oo xildhibaano ah oo opportunistic dadka adduunka ugu fooshan barnaamijka waqtigiisa ugu dhaafay laakiin inaan ka tagi dooni maayo waan isla ciidaynaa maanta waxaan idinka ballan qaaday emotion iyo ilmiga arki maysaa maanta anigu ma ilmay emotion ay ma galo waan isadkeeya dad qabiilistayaal oo xildhibaano ah ayaa maanta waxay noqdeen opportunistic waxay tahay qof fursad walba oo soo marta ama ha xumaato ama ha weynaato oo isticmaalaya dadkaas laga yeelay maayo waalidin yaqaana waxaad tihiin waxaad ku shaqaysaan qabiil ay ku shaqaysaan Soomaaliyeed kama aha wixiiba dowladda ka soo horjeeda opportunistic waa isticmaashan cid idinka yeelaysa haba yaraatee ma jirto taas waa shaqaanaan waa la og yahay fursadda kaliya ku shaqeeyaan qabiilkiina ku har arrintan waxay u taallaa Soomaaliya ay u taallaa Soomaalida is og ay u taallaa marka it doesn't matter cidda tahay qabiilka tahay waxa tahay Cabdikariim Sheekh Muuse maalintuu uu dhashay kama duwaneen wiilka maanta berri iyo gabadha dhalan doonta kama duwaneen sarkaal Soomaaliyeed oo ahaa veteran ayuu ahaa wadankiisii ayaa laga qafaasho laga afduubay oo wadan cadow ah gacanta loo geliyay taas ayay mas'uuliyadu taallaa iyo xanuunka labaad oo maanta yaala wuxuu yahay dawladii Soomaaliyeed oo hadal laga laayahay yaala dawladii Soomaaliyeed oo hadal laga laayahay oo la leeyahay say wax u jiraan bal noo sheega mo aysan hadlin dawladda Soomaaliyeed mo damage uu sii weynaanayo oo la ogaanayo dawladda in arintan wax ka ogtahay aniga hadda kuma dambaabi karin wali salaadii aan soo tukanay ee jimcaha iyo casarka ayaa weysadan qano kuma dambaabi karin ma dhigi karo dawladda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo Khayr iyo Niisa iyo Bashir Goobe iyo Shambaroos ayaa ka dambeeyay ma dhihi karo sababtoo wali waxba kama hayo afkooda laakiin dawladda Soomaaliyeed waxaysan ogeyn ma dhacaan haddii ay dhacdo galmudug dhanka gaalkacyo ama dhanka Puntland hadii laga dhiibay haday noqoto taasna mas'ala kale noqonaysa damage-na uu sii soconaya marka arintan in laga aamuso ma ahan marka ma aqaan wallahi waxaan yahay ma aqaan inta badan hadalka waan ka xumay hal sac ayaan isla hadlaynay inta badan hadalka afkayga ma waayo hadal laakiin hadalkii baa waxaana ka sii xanuun badan dad oo dawladda ka tirsan aan la hadlay oo ay jawaabi waayeen jawaab oo maaragtay just ah lagu siiyey taasna waa mas'alo kale taasna la iloobi maayo sababtoo ah annaga dawladda uma sacabtumayno oo kama doonayno xil kama doonayno dawladda ka dooni mayno in maaragtay lacag ayna siiyaan
dowladda waxaan rabnaa kaliya waddanka siduu ku socdo inuu wanaag kusii socdo laakiin tan damage weyn ayay keentay dhibaato weyn ayay keentay fursad kasta oo aniga aan helo dowladdu waan ku weydiinaya marka hadduu ahaan la madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wax walba day ahaan lahayeen bashiir goobe dadka la sheegay shambilosh haddii fursad aan waan weydiinaynaa waxaan dhahaynaa ayaa ka dambeey maxaa dhihi xataa lama dhihi karo xataa haddii la yidhahdo ninkaas waa terrorist ama waa argagixiso lama dhihi karo sababtoo ah qofka dastuurkaaba dhigaayo qaybtiisa 37 ayaa dhigaayo qofka mar walba ilaa maxkamad laga soo saaro waa innocent waxba ma galabsan wax uu sameeyay haba yaraatee ma jirto waa in maxkamad la soo saaraa oo la yiraahdaa waxaas ayaa lagu hayaa kadibna la xiraa xabsi la dhigaa haddii ay dhacdo in dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia ay leeyihiin xiriir isweydaarsiga maxaabiista ama loo gudbinayo la sameeyo loo gudbin karo waxba dhibaato ma leh laakiin waa in qareen uu helaa in maxkamad la saaraa la xiraa appeal ama uu helaa maxaa la yiraahdaa racfaan uu helaa wixii dhan ma dhicin waxaan maqalnay askariga ayaa la qaaday asawir laga sii qaaday lagu bahdilay subhanallah la bahdilay marka qabiil meeshuna gay fiiray waddankii fiiray dhalinyarada waddankii waa la kala qaybiyay cadowga adduunka wuxuu ugu jecel yahay inuuna kala qaybiyo annaga uu gobol naga dhigo inta gobol uu geeyo kan inta uu geeyo waxaas waa laga dhigay hadda waxay rabaan ayay samaynayaan bal ciidamo Soomaaliyeed oo xuduudka Jubbaland ama kuwa jooga goboladan kale ee xuduudka Kenya leedahay South West or whatever ay joogaan bal ciidamo wata hagalaan waddanka Kenya hagalaan Ethiopia hagalaan waxa ka dhacay arkaysaa marka mindidii hal dhinac ayay afka u jiraysaa marka dhalinyarada maxaa looga baahan yahay dadka waxgarka waxaa looga baahan yahay arrintan in laga aamusin حتى الدولة wax walba ay ku qaadato sababta dowladda Soomaaliya Ethiopia hadda iyo Soomaaliya xiriirkooda way fiican ma doonayso in hal shakhsi uu dhibaato u keeno marka haddii ay dhacdo ninkan maanta loo soo celiyo waddankeeni ma dhici doonto mustaqbalka in arrintan oo kale lagu degdego dowladda cashar fiican ay ka baranaysaa haddii iyada ay mas'uul ka tahay ama ay og tahay weli afkooda waxba kama hayno laakiin waxaan ku soo xirayaa idinkoo mahadsan sii qaybiye waxaan codsanaynaa dadka wasiirada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha xafiiskiisa inay dhalinyarada muwaadiniinta Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed qurba joogta waddanka jooga annagu waxaan nahay dad humble ah waxba ma nihin wax aan nahay male waxaan nahay Soomaali ayaan nahay isku isr ayaan nahay qalbi dhagax annagu nala mid yahay in loo sheego dowladda Soomaaliya waxay ka ogtahay kaliya haddii dowladda Soomaaliya arrintan ay ka hadli weyso ay tiraahdo waxaan facebookyada meelaas ka qaaqaylay hadalkooda kuma jiro haddii tiraahdo anagana waan iska aamusayna markaas durbaantii la haday marka meesha lagu tumi lahaa ayaa la rabaa ay noqonaysaa adiga isku day barfuun qofka le isku soo buufiya magaalada lamar qofkina ka hor yimaado barfuun lama xadi karo waa lagaa soo urinaya marka haddii dowladda ay durbaankeena inaga xaddo meel ay ku tumi lahayn la rabaa sababtoo ah Soomaaliya waxay imaanaysa one man one vote ayaa imaanaysa waxay imaanaysa election ayaa imaanaya waxay imaanaysa vote of no confidence ereygan waan iska leeyahay maanta motionka ayaamii hore waxaan ku doodi jiray waan dhihi jiray baarlamaankan dadkan qaswadayaasha ah ee motionka wada bal motion ha keenaane waa maxay motionkay wadaan waxay ka sheekeynayaan ayaan ku doodi jiray waan dhihi jiray laakiin maanta ma hadli karo haddii la yiraahdo motion baan keenayaa berri xildhibaan kala mid xildhibaanada uu yiraahdo maxaad ku keenaysaa waxaan doonaynaa muwaadinka Soomaaliyeed sida dastuurka lagu istaagay oo waddanka cadow gacanta loo geliyay motion tay keenana aniga gacanta taagay waan taageeraya markaas motionka soo ku taageersanaa inkastoo aniga dowladda aanan doonayn inay burburto oo aan doonay dowladdan ilaa iyo 10 sano kale inoo soo jirto haddana waxyaalo kale oo waxyaalo waxa jira aan laga aamusi karin ayaa jira oo la doonayo qof walba oo Soomaali inuu ka hadlo haddii sharaftii iyo karaamadii waxa kaliya aan ku noolahay waa kaas yana bedeli kara ma Ingiriis baa noqon karaa mise Nigerian mise waxa noqon karaa Ethiopia ma noqon karo Soomaali ilaahay naga dhigay waana ku faraxsanahay inkastoo aan nahay dad la bahdilay oo dhulka lagu jiray hadana ku faraxsanahay ilaahay baa naga dhigay Allah na baday Soomaali marka siyaasadda iyo qabiilka iyo gobolaysiga haddii meel aan iska dhigno bal aan dhahno dignity iyo sharafti iyo qiimihii Soomaaliyeed ayaa la soo galaa dhahno markaas ka baxdi aan ka hadalno taas aan ka hadalno laakiin haddii tan kaarbid la hoos geliyo kuwii kaloo dhac kaarbid la hoos geliyo wax noo soo horay male waa maasantiin aad oo maasantiin mar labaad waxaan leeyahay عيد مبارك دمانتين ما يلبى أدونك كجوكتان
dadka ku nool goboladaas qoyska qalbi dhagax ha la xaawiyo gacan ha la siiyo qoyskiisa ilaa aan iska maqlaynaan insha allah kolley markii ugu dambaysa maan waan ismaqlaynaa waa mahadsantiin waqti waan idinku dheereeyey waqtigiina la qaata familkiina marka hadalkayga waxaan kusoo xirayaa keliya markaa meel fadhiisatid adiga iyo qoyskaaga waxaad ku tiradaa iska ilow qabiilkay ka dhasheen waxay yihiin iska ilow qabiil laakiin u sheeg inay Soomaali yihiin in ay Soomaali yihiin ayna proud ay yihiin dad ku faraxsan Soomaalinimada taas u sheeg kaliya taas ayaa muhiima marka waa mahadsantihiin ilaahay khayr hadin siiyo ma aragtay waa waqtigii fiicnaa way soo socdaan soo laabanayaan waagii fiicnaa wuu soo laabanaya insha allah laakiin ilaahay baa wax oga dowladdeena letdown naga dhigtay laakiin lagama aamusi maayo tan kulley waa mahadsantihiin ciid mubaarak sii qaybiya aada u mahadsantihiin waana ka xumahay I don't get emotional ma noqdo inta badan laakiin maanta xoogaa maaragtay waa emotion yar ayaan noqday emotionkana ma ahan wax la iska dhigdhigo ama pretend laga dhigo oo la iska dhigdhigo ma ahan emotionka waa wax maskaxda iyo caloosha iyo meel walba ka timaada ilaahay anaga dhan waddankeena nabad ha u keeno ilaahay dowladdeena ha noo sii weyneeyo oo waqti fiican ha siiyo laakiin banooniga waa soo tuurnay dhanka dowladdu yaallaa dowladda ayaan akhbaar ka sugayna waan isla joognaa waa salaaman tihiin Soomaali ilaahay ha nooleeyo cadowga Soomaali ilaahay naga jebiyo Soomaali ilaahay isu keeno qalbigeenana ilaahay nadiif ha ka dhigo qabiilkana ilaahay hanaga burburiyo waddankeena ilaahay sharaf u soo celiyo marka waa maalin carafo ah waxaan idin leeyahay familkiina waqti fiican la qaata that's the most important things Soomaalinimadana maaragtay weligiin ha iloobin waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh